ragga adduunka ugu taajirsan oo ku tartamaya sidii ay u maalgelin lahaayeen cilmi baarisyo ku saabsan. 1. qaabkii gabowga looga hortagi lahaa oo loo joojin lahaa dhimashada oo cumriga bini'aadamka loo dheerayn lahaa. 2. qofka bini'aadamka wixii maskaxdiisa ku jira sidii loo koobiyeyn lahaa, cajaladna loogu shubi lahaa iyadoo loo samaynayo maskax sinaaci ah. 3. sidoo kale waxay ka shaqaynayaan maalqabeennada adduunku sidii qofka maskaxdiisa loogu shubi lahaa cilmi kasta oo barashadiisa qofka bini'aadamka waqti dheer ka qaadan lahayd. taa beddelkeeda maskaxdiisa ayaa lagu shubi doonaa umana baahan doono in uu wax barto. daawade si aad xog badan uga ogaato barnaamijkan ha ilaawin inaad muuqaalkan like noo saarto. waa anigoo ah Nadra Saciid. taajiriinta adduunka oo ku tartamaya sidii ay u joojin lahaayeen dhimashada, cimriga bini'aadamkana loo dheerayn lahaa, amba xataa qaabkii ilaa weliga loo noolaan lahaa oo dhimashada dhanba looga badbaadi lahaa. waxay sheegeen in dadka 50 sano jirada imika adduunka jooga ay noqon doonaan kuwa ugu dambeeya ee dhiman doona haddii mashruucaas lagu guulaysto. subxaanallah, ma oga miya in ilaahay awooddaasuu leeyahay ciduu doonana dili karo, ciduu doonana noolayn karo. waxaa jira tartan adag oo dhankaasa oo maalqabeennadan ay doonayaan mid walbaaba inuu qarash geliyo si haddii beritoole lagu guulaysto mid kastaabuu uga samayn lahaa lacag xad dhaafa. waqti waxaa jirtay shirkad lagu magacaabo Altos, taas oo iyadoo cusub lacag $270 milyan maalgelin ahaan loo siiyey. waxayna shirkadaasi isku soo ururisay aqoon-yahano sare. mas'alada ay ka shaqaynayeenna waxay ahayd sidii da ahaan loo yareyn lahaa unugyada jirka bini'aadamka. waa nooc ay rabeen inay dib ugu barogaraamiyaan nolosha qofka bini'aadamka, taas oo ay qaab ahaan u sheegeen in 50 sano oo dheeraada cumriga bini'aadamka lagu dari karo. dhanka kale waxyaabaha ugu waaweyn ay damacsan yihiin waxaa ka mid ahaa sidii qofka bini'aadamka loo gaadhsiin lahaa in uu noolaado 180 sano in ka badan sida xayawaanka diinka oo kale, dadkuna 200 sano in ka badan inay noolaadaan. maalqabeenka iskale shirkadda Amazon, Jeff Bezos, wuxuu ku jiraa dadka ugu horeeya ee raba hawshan inuu maalgeliyo. wuxuuna yidhi dhimashada dhanba in laga fogaado waa hawl ay tahay inaynu inagu ka shaqayno. sidoo kale mulkiilaha shirkadaha Facebook, WhatsApp, Instagram ee Mark Zuckerberg oo ka mid ah ragga hawshan ku tartamaya ayaa isaguna wuxuu yidhi anigu waxaan danaynayaa bini'aadamka, maxaa inoo sahlaya inaynu weligeen noolaano, sidee ayaynu u dabarjari karaynaa una daaweyn karaynaa dhammaanba cudurrada adduunka ka jira. waxay dhisaas Mark Zuckerberg. taajiriinta adduunku markay wax kasta oo adduunka yaala ambase ay jeclaadaan ay ku helaan si fudud, waxay u malaynayaan inay haystaan awood wax kasta oo qalbigooda ku soo dhacana ay u samaysan karaan. ma oga miya mashruucaas iyagoon hirgelin inuu ilaahay nafta ka qaadi karo, amba ay ku soo toosaan xanuun ay ka kici kar waayaan. taas maba aaminsana. keliya waxay aaminsan yihiin lacagtooda inay wax kasta u qaban karto haddii qof la dili karo amba la noolayn karo. subxaanallah. xagga dadka muslimka ay ku ducaystaan ilaahu khaatimada khayr noogu khatin, jannadana nagu arsaaq. adduunka waxaa ka jira walwal, cuduro, xanuuno, keliyaata meesha lagu noolaanayo weligeedna lagu dhimanaynin waa jannada. waxyaabaha ugu waaweyn ay ka shaqaynayaan oo kale waxaa ka mid ah sidii maskaxda qofka bini'aadamka waxa ku jira oo dhan loo koobiyeyn lahaa, cajaladna loogu shubi lahaa si hadhow qofku markay nafta ka baxdo loo sii kaydin lahaa amase loo hayn lahaa maskaxdiisa wixii ku jiray. tusaale, isagoo dhaxalkiisa qaybin haddii uu qofku dhinto, amba haddii ay jireen mashruucyo uu islahaa samee kadibna uu ka dhintay isagoo howlo badan ay qabyo ka yihiin, ayay sahlaysaa ambase ay fududaynaysaa in laga hortago. taa beddelkeeda waxaa loo samaynayaa maskax sinaaciya, taasoo wixii laga soo koobiyey maskaxdiisa oo dhan lagu shubayo. halkaas ayaa lagu kaydin doonaa. waxaa xitaa ani ahaan aan la yaabay oo aad iiga yaabisay, raggaas waxay ku mashquulsan yihiin sidii qofka maskaxdiisa loogu shubi lahaa cilmi kasta amba aqoon kasta oo qofka barashadiisa waqti dheer ay ka qaadan lahayd. taa beddelkeeda maskaxdiisa ayaa lagu shubayaa, loomana baahan doono inuu hadda kadib qofku uu wax barto, waqti badanna uu kaga lumo barashada cilmigaas. qofku marka uu noqdo qaangaadh waxba ma dhigan doono iskuul amba jaamacad, keliya wuxuu u baahan doonaa uun in aqoon iyo cilmi kastaba in maskaxdiisa lagu shubo. heer waxaa la gaadhi doonaa dadka adduunka jooga oo dhan ay noqon doonaan dad wada aqoon leh amase wax kasta garanaya. xitaa ma ilaawi doonaan cilmigaas sababtoo ah maskaxdiisa ayaa kaydinaysa. hal su'aal haddii la weydiiyo si degdeg ah ayuu jawaabta usoo tuuraya. maskaxda dadka adduunka ku nool oo dhan waxay u shaqayn doontaa sida robotka. waxaa la waayi doonaa qof jaahila oon waxbaba garanayninoo adduunka jooga.
waa la yaab walaahi daawade haddii aan su-aalka weydiiyo saddexdaa qodob aan ka soo hadalnay sidee ayay ku leeyihiin nagula wadaag xagga komitiga fikirkaaga waa noo muhiim maalqabeennada adduunku waxay ku tartamayaan sidii ay u hirgelin lahaayeen mashruucaas mid kastaaba wuxuu rabaa inuu noqdo kan ugu horeeya lacagta ugu badanna ku maalgashtaa si haddii beritoole loogu guulaysto uu uga dhexli lahaa magac iyo hanti intii kasii badan arrinkan kuma koobna keliyaata maalqabeennada xitaa dadweynuhu waxay isku diyaarinayaan in ay ka iibsadaan shirkadahaas sharar yaryar si ay faa'iido badan uga helaan marka la hirgeliyo daawade ka waran arrinkaas kee ayaa kuugu la yaabadnaa joog maalin kasta intaad daawato inaad aadir iska baxdo xaq maahan fadlan muuqaalkan xaqiisa sii oo like saar haygala bakhaylin haddii aanad hore nooga mid ahayn amba aanad noola joogina nagu soo bir walaalo maxaa cilada ku dhigay sidoo kale la wadaag muuqaalkan asxaabtaada adigoo u sheer garaynaya waa anigoo ah Nadra Saciid dhammaanba asxaabta ku xidhan Facebook page-kayga iyo YouTube-kaba muddo ayaynu kala maqnayn aad baan idinku xiisay waad ku mahadsantahay daawada haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalkan